nolosha dad fara badan iyadoo xaafado dhowr ay ka qaxeen bulshadii ku noolayd. qoysas fara badan ayaa hadda waxay yihiin banaayaal kadib markii ay biyo fariisteen guryihii ay ku noolaayeen. haweenka, carruurta iyo waayeelka barakacay ayaa waxay u baahan yihiin gacan bini'aadinimo uga timaada dawladda dhexe, maamulka gobolka Gaarisa, siyaasiyiinta iyo hay-adaha deeqaha bixiyo si noloshan ay ku jiraan hadda wax looga bedelo. Tumefadhiliwa kwa maji, sina kitu chochote isipokuwa watoto peke yake. Sina kitanda, sina nguo, sina chakula, sina chochote, sina vyombo, sina mattress, sina kitu ya kulalia yote. Unaona vile nini nimekuwa? Je, kama analeta kenje wanaharibu kabisa. Mambo yote maharibu. Kila siku anafanya kila mara anafanya namna hiyo. xildhibaanka laga soo doorto bartamaha magaalada Gaarisa sidoo kalena hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu sheegay in xaaladda hadda ka jirta Gaarisa iyo Tana River ay yihiin kuwa muujinaya xaalada adag marka laga yimaado dadka barakacay. waxa uu hoosta ka xariiqay in roobabka iyo daadadku ay geysteen khasaare hantiyeed. taqriiban countiga Tana River iyo countiga Gaarisa dhibaatooyin fara badan oo dadweynaha iyo shacabka dib weyn u keena ayaa hadda jira. dad baa soo barakacay, beerahoodii khasaareen, jimadii tageen, guryahoodii khasaareen oo hadda maanta nolol qaxooti oo kale ku nool magaalada Gaarisa iyo countiga Tana River. magaalo Maroro iyo Madobo oo socotay oo weyn baa hadda biyo qariyeen. marka dawladda iyo hay'adaha kale dadka samafalka oo dadka soo gaareen dadkii hadda cuntooyin baa la siinayaa inay balbihi dib u noqdaan. kabacdi waxaan ku tala jirnaa laba shay. mid inay dawladda sare ay dhaqaale bixiso oo dadkan siday guryahoodii dib ugu soo dhisi lahaa. dadkan ka dhashay roobabka guga oo aad uga da'aya meelo ka mid ah bariga qaaradda Afrika ayaa haddana marka laga yimaado fatahaaddan ay ka geysteen magaalada Gaarisa waxay saameyn ku yeesheen qaar ka mid ah wadooyinka waqooyi bari Kenya oo aysan awoodin gaadiidku inay si caadi ah u isticmaalaan. xaaladda bini'aadinimo ee ka jirta magaalada Gaarisa ayaa waxay dadku si aad indhaha uga hayaan sida ay uga falceliyaan dawladda dhexe iyo siyaasiyiinta laga soo doorto guud ahaan waqooyi bari Kenya.